marka koowaad waan ku hambaliyeynayaa inaad maanta daafuraysaan casriyeynta hawlaha iyo xafiisyada dowladda hoose ee Hargeysa. barnaamij aad qurxoon baa keenteen sida rag igu horeeyay sheegay fulintii waa inuu wada guntanaa annagoo garab taaganahay idina isu nagsiina. talabaad dowladda hoose hawl badan baa u taala iyadoo sidaa tahay oo hawlo badan qabateen intuu bogaadina si ragga hor sheegay oo wadda leh oo magaalada leh oo dhib badan haysta haddana hawlo badan oo kale way noo yaallaan. markaa soo kooban 3 wax oo ballan qaadeen oo markii aad doorashada galayseen ballan qaadeen oo xisbiyadu 3 xisbiyo magaad la ballan qaadeen waxaynu doonaynaa in la taabto. dhammaan barigaa intii la doonayay ordaysay xisbi kasta ahaadoo waxaynu ballan qaadnay oo xisbi waliba iyo xildhibaan ballan qaaday ama dhowr jeer aan meel ka ballan qaaday inamada aan wadaha waxay keeni doonaan waxa kale cirro iyo faysal rag badan ka maqlay hawsha wada in magaalada loo samayn doono garoomo fiican oo dhalinyaradu ku ciyaarto. garoomada waan ka rabaa 5 sano oo maraysa dadna wuxuu ku ballan qaadaan ee axad gool waa inay fuliyaan. 2 wax kale oo barigaa ballan qaadnay in magaalada aynu u samayno meel dadku nafisaan parking meel dhir leh oo la lugluuyo 5 sano aynu maraynaa beertii xiroodan bay sheekh darriyo wadaasha marayaan meel kale oo lama sameeyay dadka weebay iyo carruurta meel ku buuxsadaan deetana wad ka suuynaa oo ballan oo taala timacado magaalada saawin ballan qaad dee doorashada way iman doontaa war timacado inkastoo aad u sheegtay dadka iyo qolahan baarlamaanka oo doorashooyinka aad arji wanaagsan dirtay oo macquul ah haddana dee doorashada way iman doontaa garabadana laga sugaya. ta saddexaad magaalada gaadiidku ku batay waa dhab horeynu maraynaa darajadeenu waa kuwii 6 sano jiray waa cidhiidhi in baabuurta magaalada marsa la kala habeeyo labadaba oo dadka inta lugeynaysa inta baabuurta wata mar walba inta lugeynaysa badan iminka waxaad muddaa suuqii dhexe inay qabseen inta baabuurta wata oo qofkii lugeyn lahaa horta qof jilicsan ay carruur iskaba daayo kii xoogga sida u mara ay adag tahay. waxaan isku ogeyn in la sameeyo baabuurta hab loo sameeyo basaska kuwa xamuulka kuwa yaryar la karaysto meel la dhigo dhinacyaa u kala socdaan basku meeluu qofka isla taago qof yar ama qof jilicsan ama qof reemiyaa bas soo raacaya halku socday garan maayo meeshuu doona isu taagi maayo halku doonaa wuu dhigayaa. 5 sano waxay inaan dhigno baska halkaasuu istaagayaa kuwa yar halkaasay marayaan kuwa xamuulka halkaasay marayaan dadku halkaasuu marayaa intayna cidhigaa inaynu kala sifayno dee wax dowladda hoose saaran iyana weli waa nugu baaqi waddooyin waanu dhisnay horumar badan waynu samaynay magaaladu way weynaatay. qodob kaloo qorshaha magaalada ah iminka waxaynu samaynay wasaaradda horumarinta dhulka wasaaraddaas qaranka o dhan baa la doonaya inay dhulkiis dib waagto oo sidii halkan uu ka sheegayay guddoomiyaha maxkamaddu dhulkii qaranku maamulo oo laga dowladda hoose ilaa halkaasaa leeda isaa u maamul. iminka dowladda hoose qorshayaasha aynu dib eegi doonno waxaa ka mid ah magaalada waynu fidinaa uun 4 banjaaba iyo magaalo walba tu walba nin waliba beertii wax ka soo saari lahaa bolon ugu bedela waa bolonkaa qaalaya maxay nagu keentay waddada laamida dowladda hoose dhisaa waa 5 kilomitir nin wal oo 5 kilomitir ka dhistay xaafad buu leeyahay waddo ay keen booliis ay keen layd ay keen biyo dee dhisansi magaalada intee bay noqonaysaa dee caqli waa la keenaa caalamku sidan kuma socdo haddaynu sidan kuwa dhulka dhamayna dee way soo wada gaaraan magaalooyinka ilaa waa si reemigii nin walba intuu taansa aqal gaara degaayay deetana wuxuu leeyahay waddadii iyo laydhkii iyo iskuulkii iyo amnigii ay soo gaarsii waa hawl culus. marka in magaalada la isu celiyo oo magaalada la isku dhiso oo magaalada yarta meel baacimishtana meel baarkinga meel warshadaha ah dee iyo meel marka dhawaan la nagu aaso ilaa xabaalaha nagu daran loo iibsada xabaalaha waxaanu dalka qura caalamka ka suurtay dhulkiisa in la yiraahdo xabaalo hal iibi ee uu sharciye iibi adduunka meel ka badhicide yaa dadka intee waxay ku leeyihiin adigu labada aqalad galayso kan ifku waa yarihi aad baad ogtay kaas ku raagsan waa kala akhro
marka mas-uuliyiinta haddii aynaan lahaynba meel lagu as dadkii oonu qorsheyn kala weynay yana waa dhibaato taala waxaanu samayn doonaa marka wixii ka dambeeya dowladda hoose iyo wasaaradda horumarinta dhulku dawxoynteedu si dhow bay wada shaqeynaya si dhow oo isla og yihiin waxay qabanayaan iyo qorshaha ay leeyihiin ayaynu qabanaynaa waayo dowladda hoose ee hargeysa waxay ka mas-uul tahay hargeysa deegaankeeda dowladda hoose ee berberina ta berberi ka mas-uulta ta burcana ta burco haddii aanu jirin santara dhexo isku ken xidhaya oo kao dhan isku ilaalinaya dee nin waliba intiisu buu ku fooraya markaa tii dhexee qarankaa lumaysa magaalada keliga socon mayso qarankii baa dhulkii saynu idhaahna waana isku xaydhnaa ka qarankaa horta leeyahay number one kulasaa loo qarankiisaa loo daadishay waa taniga dhiman waxaan kusoo kobay waa idin bogaadinaynaa waa idinku bogaadinaa hawlaha qabateen waa idinuna xilkaa haysaan canaanta iyo dhalisha laisku hayana waanu idiin ognahay oo in gardarro ah iyo in runaba leh bini aad baynu nahay dalkeenu u shaqaynaa qof kastoo xil aya u gafaya wixii lagaa filayo wax ka yar baad qabanaysaa qof walba marka doorane waxa laga filaya in mushkiladu dhan xalilayo ma xalili karaayo qofku ka waa inuu qayb xalilaa marka inaad dadaalaysaan oo hawl badan qabateen waa idinku bogaadinaa waa idin ognahay in badan oo idin dhalilaysaa inaad ka gafaysana waa ognahay hawl iyo dhalina waa inoo taallaa waa inanu saxnaa waa inaan idin dhaa ka qarsan waxaan idinku bogaadinayaa hawlaha soo qabateen waxaan idinku bogaadinaya shirkiinii shalay ee miisaaniyaddii nii ku baaskarayseen waxaan idinka rajeynaa wada shaqayn gudihiina ah adeeg aa u shaqaysaan magaaladiin dooratay oo limberitana doorasho waa heli doontaan waqti kaga timaadee doorasho waa lasoo noqonaya dadkii mar labaad hortegaya inaad taana ka dadaashana tallaabooyinka imkaa qaadeen iyo qaar kasii wanaagsan qaadaan annagana waxaa naga filaysaan inaanu iskii garab taagno inaanu la shaqayno inaanu gacan qabow oo wanaagsan idinkula shaqayno aanu adii mala qaadayna dhammaan idinka iyo xubnaha kale dowladdaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ballanteennu waa qorshe aasaynu fulino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu